Haye walaal, magacayga waa Kishoor, waxaan ka imid Manipur, waqooyiga Hindiya. Sida aad noo sheegtay, dadka nafsadooda difaacaya ee jooga Kashmir waxaa lagu naanaysaa argagixiso. Sida oo kale Manipur ku jooga waxaa jira dad yowga qaar oo si bahalnimo leh u geysta falal argagixiso. Sida darteed waxaan nagula naanaysaa argagixiso. Gurigayga ayaan sababtaas uga soo tagay, dadkuna waxay ii maleeyeen inaan dhintay. ehelkayga dadkayguna waxay yaqiinsadeen in aan aniga dhintay, iyadoo jirto anigu inaan u safray magaalada Mumbai cabsi aan ka qabo dadka. Markii aan joogay Manipur, halka kumaanan arkin Peace TV. Anigana waxaan jeclahay cilmiga iyo waliba diinta. Waxaan booqday macbad ay leeyihiin singaha iyo mid kale ay leeyihiin Kirishtaanka. Waxaan akhriyay Bible-ka. Meelo badan ayaan booqday. Mana aanan awoodin inaan ogaado sababta ay muslimiinta garkooda u daysanayaan. Maxay tahay tacliimaadka Islaamka? Kama aanan helin Manipur kitaab ku saabsan Islaamka ku qoran luqadda Hindiga ama luqadda Englishka. Waxaana idinka doonayaa inaad u dirtaan Manipur ama mandiqad kasta oo ka mid ah waqooyi bari ee dalka Hindiya kutubtan wax la mid ah ama ku qoran luqadda Hindiga ama luqadda Englishka. Haddii aad heesaan kuwa ku qoran luqadda Hindiga ama Englishka, waxaan diyaar u ahay inaan iibsado. walaalka su'aal wanaagsan ayuu na weydiiyay. Wuxuu yiri dadka ka jihaadaya Kashmir iyo waliba si la mid ah Manipur, dadku way isdagaalayaan. halkaas ayuu ka soo tagay oo halkan ayuu yimid. halkan ayuuna joogaa 15 maalin. waana sababta argagixisada. waxaana farxad gelinaya inuu Islaamka wax ka ogaado. wuxuu doonayaa inuu ogaado maxaa looga sii dayn waayay Peace TV Manipur. sidoo kale wuxuu rabaa inuu ogaado maxay muslimiintu gurkooda u sii deystaan. waa laba su'aal oo asaasi ah. sida aad tiriba walaal, ma awoodo inaan hubiyo dhammaan dadka ka dagaalamaya Kashmir inay jihaad ku jiraan. iyagu way isdifaacayaan, way dagaalamayaan. u kaade mudane, si qaldan ayaad ii fahamtay. aniga waxaan kuu sheegay in adiga saxsan tahay. walaal, su'aashaada si kaamilan u fahmay. hagaag, weligay ma dhihin waad qaldan tahay. su'aashaaduna aad ay u wanaagsan tahay. laakiinse waxaan isku dayayaa inaan caddeeyo dhammaan dadka ka dagaalamaya Kashmir. daruuri maahan kulligood inay ahaadaan mujaahidiin xaqiiqo ah. laga yaabay qaarkood inay u sameynayaan arrimo ayaga u gaar ah oo qarsoon. qofka raacaya tacaaliimta Qur'aanka kadibna wadada alla ku dagaalamaya waa kaas mujaahidka saxda ah. ma awoodno inaan si guud uga hadalno oo dhahno dhammaan dadka ka dagaalamaya Kashmir waa mujaahidiin. hadda aanu nimaano su'aashaada ku saabsan Manipur. waan ogahay halka inay ka jiraan dagaalo badan. waa Manipur. halkan ayaadna u imaatay isla sababtaas. waxaa laga yaabaa inay doonista alla ahayd. ilaahay wuxuu doonay inuu halkan kugu keeno sababta dagaalka. wuxuuna ka soo waday nabadda adduunyada. laga yaabay inaad gaari doonto nabadda aakhiro. sax? waxaadna dhageysatay muxaadaro wanaagsan oo ka hadlaysa nabadda. nabadda adduunyada ka jirta waa mid waqtiyeesan oo kooban, laakiinse nabadda ugu wanaagsan waa nabadda aakhiro. hadda waxaan u nimaanaynaa su'aashaada sii deysiga garka ee muslimiinta iyo sababta looga baahin waayay Peace TV Manipur. marka loo eego sii deyn la'aanta Peace TV ee Manipur, waxaa kuu suurtagal ah si fudud inaad u qaadato frequency-giisa. haddii aad saarto saxan weyn, waxaa laga yaabaa kaybalku inuu kuu soo qaban waayo kanaalada oo ay kuu shidmi waayaan. laakiin haddii aad saarto saxan weyn, wax badan kaama qaadanayo. waa dhowr kun oo rubiis oo aad jihadiisa u jihayso dhanka bari 68 digrii. intal saytkana aad ka dhigto 10. markaasi waad heli doontaa baahinta Peace TV insha Allah. isku day inaad kaybalka kanshidaya aad hesho. anagu ma awoodno inaan Manipur inta tagno dadka aan ku qasabno inay baahiyaan Peace TV. laakiinse haddii ay saxanka u jeediyaan 68 digrii dhanka bari oo ay adkeeyaan oo ay hubiyaan frequency-ga, insha Allah markaasi uu kuu soo muuqan doonaa Peace TV. markaan u nimaano su'aashaada ku aadan sideysiga muslimiinta ee garka, anigu waxaan oranayaa haddii adreeska iyo ciwaanku uu xaqiiqada niyadaada muujinayo, xiro. waxaan jeediyay muxaadaro ciwaankeedu yahay haddii ciwaanku muujinayo xaqiiqada niyadaada, xiro oo ku labiso. tusaale ahaan, haddii aad aado shir ay leeyihiin dadka mufakiriinta ah oo dadkuna ay haystaan calaamado lagu wada yaqaano. aniga waxaan ahay dhakhtar, aniga waxaan ahay injineer, aniga waxaan ahay saynisyahan. macluumaad ayaga ku saabsan ayay ku siinaysaa arrintaas. laakiinse markaad aado shir ay leeyihiin dhaqaatiirta oo kaliya, arrimo u gaara ayay leeyihiin. mid wuxuu ku qoranayaa halkan ID-ga dhakhtar hebel, dhakhtarka xanuunada qalbiga, dhakhtarka neerfaha, dhakhtarka kaliyaha. haddaad ka sheeganayso xanuun dhanka qalbiga, waxaad aadaysaa kan qalbiga. haddaadan waxba ka aqoonin kiliyahana, waxaad aadaysaa dhakhtarka kaliyaha. haddii mushkilooyin dhanka neerfaha ama maskaxda ay jiraan, waxaad aadaysaa midka neerfaha. haddaba mid kasta macluumaadkiisa ayaad ogaanaysaa. qur-aanku wuxuu ku leeyahay suuratul ancaam, waa suuradda 6aad aayadda 54. that idha ja'a alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum.
that when you meet those who believe in our signs, markay ku yimaadaan kuwa rumeeyay aayaadkanaga waxaad dhahdaan nabadgelyo korkiina ha ahaato. islaamku wuxuu adkeenayaa oraahda ah nabadgelyo korkiina ha ahaato maxaa yeelay waa diin nabad. muslimka waxa waajib ku ah 5 mar inuu tukado maalintii ugu yaraan. markuu tukanayo 5 mar maalintii waa markuu tukanayo salaadaha faradka oo kaliya, salaadaha waajibka oo kaliya. 5 salaadood 2 mar ayaan ku leenahay salaada marka ugu dambeedo arintan soo socota. assalaamu calaykum wa rahmatullah, assalaamu calaykum wa rahmatullah. dadka midigta iga xiga ayaan ugu duceynayaa nabad iyo naxariis. haddana kuwan bidix iga xiga ayaan ugu duceynayaa nabad iyo naxariis. arintaas waxaan oranaynaa 2 mar salaad kasta. waxaana waajiba inaan tukano 5 mar ugu yaraan. haddaba waxaan u rajeynayaa nabad dadka midig iga xiga iyo kuwa bidix iga xiga 10 mar maalintii ugu yaraan. haddii aad tukato sunanta mu'akkadka markaas haddana waxaan oranayaa 10 mar oo kale. haddaba nabad ayaan u rajeynayaa dadka midig iga xiga iyo kuwa bidix iga xigaba 20 mar maalintii ugu yaraan. haddii aad sunanta kala tukatana tiradu waa ay sii badanaysaa markaa. markastoo muslim iga hor yimaado waxaan u rajeynayaa nabad. waxaan leeyahay assalaamu calaykum. quraanka ayaa lagu sheegay suuratu nisaa suurada 4 aayada 86. haddii la idin salaamo salaan ku salaama salaan ka fiican oo ka wanaagsan ama ku celiya oo ugu jawaaba mid la mid ah. idan haddii qof igu yiraahdo assalaamu calaykum waxaa igu waajiba inaan asna ku iraahdo wa calaykum assalaam wa rahmatullah. haddii uu igu yiraahdo qof kale assalaamu calaykum wa rahmatullah waxaa igu waajiba inaan ku iraahdo wa calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. waxaa waajiba inaan salaanta ku celiyo ama mid ka wanaagsan. hadduu mid igu yiraahdo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaa igu waajiba mid lamida ugu yaraan inaan ku celiyo oo aan iraahdo wa calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. haddii mid igu yiraahdo assalaamu calaykum waxaan oranayaa wa calaykum assalaam. oraahyadu waa isku mid laakiinse waxay ka soo fulayaan qalbiga. arintaas ayaa wanaagsan. haddaba alla wuxuu ku leeyahay quraanka haddii la idinku salaamo salaan ku salaama mid ka wanaagsan. marka aan safrayo oo aan dadka arkayo sidee baan ku ogaanayaa inay muslimiin yihiin? midaasi waa calaamada garashada, waa garka. laakiinse warbaahinta si qaldan ay u fasirayaan. qofkii garka deesta waxa leeyahay waa argagixiso. sax laakiin fiiri walaalaan ku dhameystiro iida aan jawaabta dhameystire. haddii singisinguhu ay deestaan garka duubkoodana ay xirtaan waxaa lagu tilmaamayaa dad diintooda si wanaagsan u raacaya. muslimiintu hadday garka sii deestaanna waxaa lagu tilmaamayaa argagixiso. baadariyada kirishtaanka ah hadday madaxeeda daboosho waxaa lagu tilmaamayaa mid diinteeda si wanaagsan ugu dhagan. haddii gabadha muslimadda xijaabkeeda xiratana waxaa lagu tilmaamayaa mid ciriiri iyo cadaadis ku jirta. waa warbaahinta weeyaan. garkaan ma arkaysaa? garkaani ma awoodo inuu xitaa keeno tixsi ama duqsi u abuuro. xitaa koofiyadan aan xiranahay ma awoodo inay keento tixsi ama duqsi yar. haddii aad quraanka akhriso waajib kama dhigayo quraanku garka in la sii deesto. waxaa jirta hal aayad oo ka hadlaysa garka oo ku jirta suuratu daaha suurada 20aad aayada 94. markii Muuse calayhi salaam uu qabtay garka walaalkii Haaruun calayhi salaam wuxuu ku yiri in hooyow ha ay qabanin garka. tani waa aayada kaliya ee quraanka ku soo aroortay ee lagu sheegay garka. laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku leeyahay sahih al-bukhari mujalladka 7 xadiidka 780 iyo xadiidka 781 khilaafa oo ka soo horjeesta mushrikiinta iyo gaalada garka sii daaya shaaribahana gaabiya. taasi maxaa yeelay waa arnabi. allana wuxuu quraanka ku leeyahay allah adeeca rasuulkana adeeca. nabigeena ayaana amray inaguna waan adeecaynaa. anigu waxaan u arkaa waa arrin wanaagsan oo qofka lagu garan karo. marka aan wadooyinka marayo oo aan joogo wadan aan wadankayga ahayn dadkuna igu arkaan cimaamada iyo garka kuwa badan waxay oranayaan assalaamu calaykum. waxaa leeyahay wa calaykum assalaam. waa calaamad lagu garanayo. anigu waxaan faafinayaa nabadda. haddaba halkaa waxaa ka soo baxday inay tahay camaliyad iyo calaamad lagu garanayo. tusaale ahaan haddii aad korto gaari uu dhakhtar leeyahay waxaad ku arkaysaa calaamada saliibka gaduudan. maxaa dhacay? waa si uu u tilmaamo gaarigan inuu leeyahay dhakhtar. haddii ku soo waajahdo xaalad degdeg ah waxa ku suurtagal gaariga inaad joojiso oo aad kaalmo ka dalabto. markaad aragto qof garkiisu sii deysan yahay madaxiisuna daboolan yahay waxaad ogaanaysaa inuu yahay muslim. haddii aad awoowayaashin weydiidaan waxay idin sheegi doonaan in dadka aan muslimiinta ahayn marka ay doonayeen inay qaataan gaari taxi ah
waa 50 sano ama 100 sano ka hor waxay raadinayeen darawal garkiisu sii deysan yahay koofina xiran waa darawal muslima maxaa yeelay asagu ma xeeladeysanayo mana qiyaanayo marka ay doonayeen inay wax gataan oo ay dukaan wax ka gataan waxay aadayeen dukaan oo leeyahay nin garkiisu sii deysan yahay yacni muslim maxaa yeelay ma qiyaanayo balse waqtigan hadda aan joogno haddii garka aad sii deysato koofina aad xirato sunno ah waxaa tahay argagixiso haddaba haddii magacaasi la suurad xumeeyay waxaa waajiba inaan haybada u soo celino garka waa calaamad la isku garanayo oo kaliya waa sunnadii nabigeena wuuna amray arinta inaguna waan adeecayna xitaa garkani ma awoodo inuu tixsi yar sameeyo laakiin dadka kale ayaa kugu garanaya inaad tahay muslim si aan qaarka kale nabad ugu rajayno haddii qof dhibaato ku dhacdo oo kaalmo u baahdo waajibka qofka muslimka waxa ah inuu dariskiisa kaalmeeyo haddaba joojiso oo u yeero qof garkiisu sii deysan yahay koofi sunnana wada markaas uu kaalmeyn doonaa insha Allah waxaan rajaynayaa jawaab kaafiya inaan ku siiyay